السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة قلمة. وارب وايه waxaan filayaa malaha idinka in yaro baa idinkaga jirtay oo dib liqbada iyo dhowr meelood oo cad ku jirtay laakiin hadii habar jeclaan la leeqay intaasna saacad muuse iska noqoto waaye inta yar baan ku daraya liibano abti waxa weeyaan horta hala yaabin ereyga muuse yiri inanka yare reer gabilaa ma inanka saacad muuse wuxuu yaqaanaa arab iyo habar jeclaba qayb ka inay ka tirsan yihiin habar wala isku kaayada intaasna 94 kiibaana mashruuca laga dhaadhiciyay wala inta kale idinka iskale inanka wuxuu noo yaqaanaa aniga la yaabaan war kaagan carabe horta meel ogeena inaynu habar wala inuu arab iska habar wala aanay waa maxay leefkana soo fadhidaa deynta meenan marka qolada habar jecla iyo qolada arabba inanka sacad muuse wuxuu yaqaanaa inay sacad muuse ka mid yihiin waa xaqiiqiyan yani ayuban moodi jireen ku xadis jireen maya ku qoladan 94 kii gashay sacad muuse ka badan ayaa imka weeyaan 94 kii qoladan la qoreen marka waxa weeyaan codka sacad muuse codka arab wax kasta haday yiraahdaan waxay aaminsan yihiin in aanay cid kala siin karin marka dadku marka way dabrayin baad leedahay dadka ayay marka ereyga muuse leeyahay waa runtii waa wada waa reerkoodu waa reerku caaqilka muuse u yahay muuse abdaalo cid uu caaqil u yahay ama oday waa habar jeclo iyo arab ayuu jeedaa isagu way dhowr kun way marka waa caaqilkii awal iyo waxa hoos yimaada saas hadalka u dhigaysa way de marka abta anaga horeen u baahan ba labadeeda reer iyaga horeen u baahan way adna doorashaas iimaano ka wallahi horeen baan u baahan ina tibaab kora koodhay arabku waa anaga ay facebook soo qoraya habar jeclo waa anaga hadiya jeermad kelmadaha ku arag ما waan maqlay laakiin position kaga jawaab garan maayo ilaa anigu waxaan aqaanaa reer ka waaweyn wax kale lagu qaaday arab ka weyn habar jecel hadalkeeda badaa wallahi hadda waxay noo yaqaaneen habar wal ka tirsanahay yaan bay ku sheegay yani reer madax banaan oo meel taagan baan anigu ogo dadkan hadda dadku meel waara anaga u baahan isduuq laga jabiyaan u baahan dadkan dib xoreyn iyo wax oo habar wal loogu dhaartay inaan habar jecel arab habar wal hayn waaya loogu dhaarto saasha loogu dhaarto ayaabti saasha kale meesha taala waxa weeyaan arrinta oranaysa dhowr kun oo ciidan naga joogo oo taani ka mid yahay sanamo oo mujaahidiinta dhashii sanam baa meesha joogto oo wada tiidin aga barow iyo umada meesha ku nool iyo ciidamadani waa xariiro way tukadaan oo salaada wax ma kufsadaan dhowrka ciidan kale umadaheenan kale meesha ka jooga iyagu maxay ka soo galayaan markaa ma waxaan daayirka ahayn baa horta runta marka laga hadlo had iyo jeer waxaad maqlaysaa kelmado la odhan jiray ciidanka qaranku waa annaga dadkani waxa loo yaqaanaa dadka ciidanka halkaa jooga un dad habar awal u shaqeeya marka ciidanka kama mid aha kuwaasi habar awal bay beelaha kale u shaqeeyaan ciidankii ciidanka qaranku waa habar awal hadee wasla u yaqaanaan marka dhowrka kun iyo waxa soo raaca weeyaan waa la xisaabiyin iyagana dadkan arab garxaajis cid kasta habar jeclo waxa la waxa ciidanka qaranka waxa ciidamada jooga jiidaha hore waxa loo yaqaanaa waa ciidamada u shaqeeya ciidanka qaranka ee habar awal oo imka waxaad leedahay marka dhaqankii khaliijka inagu soo biiray gadar waxa u shaqeeya 5,000 oo Soomaaliya iyo 2,000 oo Bakistaaniya iyo 2,000 oo Suudaana laakiin markay tiyaatarka la isugu soo baxo waa ciidanka qaranka gadar ka weyn maya ku qoladan 94 kii gashay sacad muuse ka badan ayaa imka weeyaan 94 kii qoladan la qoreen marka waxa weeyaan codka sacad muuse codka arab wax kasta haday yiraahdaan waxay aaminsan yihiin in aanay cid kala siin karin marka dadku marka way dabrayin baad leedahay dadka ayay marka ereyga muuse leeyahay waa runtii waa wada waa reerkoodu waa reerku caaqilka muuse u yahay muuse abdaalo cid uu caaqil u yahay ama oday waa habar jeclo iyo arab ayuu jeedaa isagu way dhowr kun way marka waa caaqilkii awal iyo waxa hoos yimaada saas hadalka u dhigaysa way de marka abta anaga horeen u baahan ba labadeeda reer iyaga horeen u baahan way adna doorashaas iimaano ka wallahi horeen baan u baahan ina tibaab kora koodhay arabku waa anaga ay facebook soo qoraya habar jeclo waa anaga hadiya jeermad kelmadaha ku arag ما waan maqlay laakiin position kaga jawaab garan maayo ilaa anigu waxaan aqaanaa reer ka waaweyn wax kale lagu qaaday arab ka weyn habar jecel hadalkeeda badaa
والله هذا واحد نويا قرينا هبرول كتبسنا يعني بيكون شيء يعني reer madax bannaan oo meel taagan baan anigu ogo codkan hadda dadku meesha waara anaga u baahan in saduuq laga jabiyaan u baahan oo dadkan dib xoreeyay wax oo habara wal loogu dhaartay habar jecel arab habar wal hayn waaya loogu dhaarto saasha kale loogu dhaarto hayaabti saasha kale meesha taala waxa weeyaan arrinta oranaysa dhowr kale oo ciidan naga joogo oo taani ka mid yahay sanamo oo mujaahidiinta dhashii sanam baa meesha joogto oo wada tiidin aga baraw iyo umada meesha ku noolayo ciidamadani waa xariiro way tukadaan oo salaada wax ma kufsadaan dhowrka ciidan kale umadaheena kale meesha ka jooga iyagu maxay ka soo galayaan markaa ma waxaan daahirka ahayn baa horta runta marka laga hadlo hadiya jeer waxaad maqlaysaa kelmado la oran jiray ciidanka qaranku waa annaga dadkani waxa loo yaqaanaa dadka ciidanka halkaa jooga oo dad habara wal u shaqeeya marka ciidanka kama mid ah kuwaas habara wal bay beelaha kale u shaqeeyaan ciidankii ciidanka qaranku waa habara wal hadee wasna u yaqaanaa marka dhowrka kun iyo waxa soo raaca weeyaan waa la xisaabiyin iyagana ha dadkan arab garxaajis cid kasta habar jeclo waxa la raaxo ciidanka qaranka waxa ciidamada jooga jiidaha hore waxa loo yaqaanaa waa ciidamada u shaqeeya ciidanka qaranka ee habara wal oo imka waxaad leedahay markaa dhaqankii khaliijka inagu soo biiray gadar waxa u shaqeeya 5,000 oo Soomaaliya iyo 2,000 oo Bakistaaniya iyo 2,000 oo Suudaana laakiin markay tiyaatarka la isugu soo baxo waa ciidanka qaranka gadar weeye marka waxaad leedahay dadku waa gadariyiin maalinta dagaalku dhacayo ayay ciidanka qaranka noqdaan inta kale waa ciidanka u shaqeeya sandalada habarawal marka mushaharun bay qaataan si gadar looga qaadanayo mushaharun bay qaataan maalin kaliya lagu yiraahdo ciidan qaran baa tiro waa maalinta dagaalku dhacay iyaga la iska horeysiinayo inta kalena dhowr kun oo inan weeyaan dhashi mujaahidiinta inta kale ciidanka qaranka habarawal bay u shaqeeyaan waa dhashi mujaahidiinta taani hogaaminayay cabdi iyo agabar iyo carruurtii iyo xaq arabartii waa ma yaabay taani waa mujaahidkii waa ciidamada qaranka hogaaminaya habarawal dadka kalena way u shaqeeyaan waa marxaasil waxa faranta jooga taani wuxuu yiri anigu qofkii ugu dambeeyay siyad barakaymi baan ahaa SNM weligay ma arag saraakiil isagu de saraakiil buu sheegtay in Cabdullaahi Yusuf baasta ka sheekeynay laakiin de Muuse wuxuu yiri SNM tii sida odayaasha SNM sida taaniyo marka de laba taana jira mise waa taanigi isagu afkiisa ka yiri waxa kale baya waxay ka dhigan tahay oo tii teela lahaa ma garanaysaa Muuse isagoo dhaawacu yaalay gabiilay 89kii oo gabiilay SNM haysatay mana jirin moogtahay gabiilo weligeeda sam qabsatay oo dawladda Soomaaliya 19 gabiil ka guurtay tii uu buu la mid yahay Muuse hadiya jeer markuu soo qabsanayo hebel oo kala buda nin arab iska soo qabsaday aniga hebel baxbad iska kaaya baxda hadeeg waxa xaqiiqi aniga hebel baxbad iska kaaya baxday waan garta marka uu iska yaqaana waxan waa aniga hebel wallahi bilay waxa uu iska caadis weeyaan